munaasabadii bilowga dhismaha wadadan isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada mudane Maxamed Muuse Abees xogayaha fulinta dowladda hoose madaxda iyo injineerada wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo munaasabada ka hadlay waxa uu sheegay in talaabada haatan ee dabadhiska wadadaasi ay bilow u tahay qorshe ay xukuumad ahaan ugu tala galeen in laga gudbo dhismihii hore loogu sameyn jiray jidkaasi ee kabkabka ahaa kaasi oo tayadiisu liidatay hase ahaatee howlgalka wakhtigan uu salka ku hayo in wadadan oo halbowle oo ay socodka gaadiidka u kala gooshaya dalka isla markaana ay maalintii isaga gudbaan gaadiid lagu qiyaaso in ka badan 1200 oo gaadhi xukuumaddu ugu tala gashay in la dhigo laami tayadiisu sareyso intii waxa qorshahaygu yahay inaan ku dadaalo in intii laamiga isku xidhnaydna aanu laami hagaagsan ka dhigno inta kalena insha Allah taala aan ku dadaalo inaanu laami cusub ka binayno oo ah markii ugu horeysay inaanu laami cusub binayno 20 sanadood waxaynu kabkabi jiray oo ku koobnayn kabkabka iyo buuxbuuxinta laamiga kan aynu joogno iyo laamiyada lamid ee hareeraha ka xiga kaasi oo wajiga hore ee qorshihiisa lagu simi doono ilaa iyo xarunta gobolkaasi saaxil ee Berbera qorshaheedan la nimi insha Allah taala waa arkaysaan wixii lagu tabcaana waa la gaadhaa marka qorshahaas insha Allah taala waa qorshaha lagu tala galay wadadan Berbera Hargeysa wadada Berbera Hargeysa kaliya wadooyinka dalka oo dhan la doonayna qalab aan noo maqan qalabka hadda aanu hayno iyo kharashkeega ayaa ku kooban inta tan laakiin insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in wadooyinka dalka oo dhan sida laga dhigo waxbaynu qabsan karaa waxna waynu horumarin karaa haddaynu niyadeedii la nimaadno niyad samideedii la nimaadno isku duubnidii la nimaadno dadaalkii la nimaadno waxaana naga go'an insha Allah taala inaanu gelino tacab iyo dadaal wixii awoodeeda inaanu gelino ayaa naga go'an insha Allah taala waxaan gaari doonaa maalmaha kamida in laamiga Hargeysa iyo Berbera oo isku xidho oo sidaas oo kala iyo laamiyada dalka oo dhan oo sidaas oo kala insha Allah taala in la arko wasiirka madaxtooyada mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa kale oo uu tilmaamay in xukuumaddu ay kaalin muuqata ka ciyaari doonto dibudhis iyo hagaajin lagu sameeyo isla markaasina kuwa haatan gacanta lagu hayo ee meelaha ay ka midka yihiin Salaxley iyo waliba wadada kale ee Dawga Cad iyadana ay xukuumaddu intii karaankeeda ah kaalintii ay ku lahayd ka qaadatay isla markaasina halkaasi ka sii ambaqaadi doonto mar walbana ay diyaar u tahay sidii wadooyinka dalka loo horumarin lahaa laamiyadu way dheeryihiin ilaa 720 kilomitir baa lagu qiyaasaa marka laga soo bilaabo dilaa halkii ay ku joogtay inta cusub dawladda ku dartay mooyaan halkii ku joogtay wadadu ilaa iyo laascaanood halka la yiraahdo xadku uu ku joogo laascaanood shadeeda inta laamiga waana inta kaliya road network ama isku xidhka wadada laamiga ee dalku uu leeyahay xagga burco baxaya xagga laascaanood baxay iyo kan u baxa Hargeysa beerteeda laakiin se waxaan qorsheynay in laamiga cusubna la abuuro sida laamiga inta gacanta ku hayno iyo wadadan gacanta ku hayno la yiraahdo wajaale sida wadooyinka kan ay wadaan community-ga dawladdu kala shaqeynayso u baxaya meesha la yiraahdo Salaxley Baligubadle haday tahay wadada cad wixii suurtagala aan community-ga kala qayb qaadan karo biidillah taala wadada ood weynaya burco kala baxda wixii suurtagala insha Allah taala tacbaan u galeynaa waana inaga go'an tahay waxaanu dhammaan bulshada reer Soomaaliland ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan sida ugu fiican uga qayb qaataan laamiga aragtaan sidaas qorshihiisa aanu qiimeynay meter square wuxuu noqonayaa $15.5 meter square laga yaabaa halka ilaa halkaas waa 6 mitir 6 mitir marka la eego meter square waxa weeye meter square waa 15 qof walba muwaadin uu bixin karayaa 15.5 waxaynu qabsan karaa wax tayo leh baynu samayn karaa wasiirka madaxtooyada mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa kale oo uu tilmaamay aad iyo aad baanu bulshada ugu baaqaynaa in laga qayb qaato dadka warxmatashiilka dadka waxa weeye tulshada ka shaqeeya dadka wax matarayaashan waxba ku kordhin wadanka 4 saac dacaayada ka shaqeeya inaan dheg loo jalaqsin la dhageysan waanu muujin doonaa insha Allah taala tacab waxa weeye rasmiya oo muuqda oo madhale